السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halka tigdaawanisid waa abna official wadla channelka aad ku subtahay subscribe saar si ku soo garan muuqaalada xiga. Waxa soo wadnay imtixaanaheeni ahaa sidee aad ku samayn kartaa dakhli kala duwan ama wax loo yaqaan passive income. Passive income waxa ku qeexnay in dakhli uu ka soo galo dhowr meel adigoo ku xisaabtamaya yani inay ka soo galgalaan dhowr meel oo kala duwan. waxaa soo wadnay ilaa iyo 5 qodob oo aan ka soo sheekeynay. qodobkan waa qodobkii lixaad aan uga hadlayno sidee baad passive income ku samayn kartaa. maanta waxaan ka hadlaynaa inaad samaysato course. qof waliba ilaahay subxaanahu wa tacaala wax buu u gaar yeelay, aqoon gaar ah ayuu qof waliba ilaahay siiyey. ama inaad noqotid qof jaamici ama qof يعني حرفة له skill ahaan inaad xirfad leedahay, xirfadaas ahaato farsamo gacmeed ama farsamo yani maskaxeed. sidoo kale ilaahay wuxuu ku siiyay heebad waxbarid. waa inaad ka faa'iideysataa aqoontaada iyo xirfadaada adigoo kaga faa'iideysanaya inaad dadkaad u samaysid workshops iyo seminaaro, sidoo kale koorsooyin gaagaaban. يعني waxa ka helaysaa dakhli fiican oo kala duwan. ka soo qaad koorsaad duubtay, koorsadii waxaa iibisay $15 iibisay. bishaan waxaa qabatay 10 qof qabatay. waxaa dhahday bishaan waxaa idin barayaa farsamada gacanta. waxaa u baahanahay kaliya 10 qof bis. 10 qof ayaa bishii qabatay. 10 qof على qof $15 ayuu bixiyay. qofkii $15 markii uu bixiyay waa $150 bishii. sanadka ku dhufana waa $1500. dabcan qiyaas haddii maalintii 2 saacadood ama course duuban ahaato ama farsamo maadaama ay tahay practical loo baahan yahay, yani koorsooyinka oo farsamada magaalo ama wadamada reer galbeedka ama wadamada carabta kale waa qaali. laakiin marka ay eegtid bulshadeena Soomaaliyeed farsamada gacanta aad ay ugu yartahay. dadka xitaa ma dareensano inay dakhli ka samayn karaan ama muhiimad gaar oo sidaas ah inay leedahay. waana waxyaabaha dib u dhaca ee weli wadankeena ku jiro uu ka soo kabalaayahay. haddii wadankeena uu heli lahaa dhalinyaro badan oo maanta farsamada gacanta ku fiican, xitaa waxaa lahaan lahayn awood u lahaan lahayn inaan yeelano xiradahay warshado industry. ma garatay inaan yeelano warshado kala duwan. caqliyadaada iyo maskaxdaada siduu ilaahay kugu siiyey iyo adiga sida heebadaadu ay tahay iyo sida adiga meel aad ka soo saartid ayaa horta mal walba aad wax ku gaari kartaa. cid kuu dhigaysa ma jirto. alif wax maale baa uskaale taa uskaale waa lagu soo dhigay. laakiin adiga laga rabaa sida ugu shaqaysiin lahayd oo aad u kordhigi lahayd, aad u hoos dhigi lahayd, aad u gudi lahayd. وقرسمه مرو وليبو كوددان فكر هل أبور maxaa aniga qaban karaa oo bulshadan wacyi ahaan ama aan ugu faa'iideysan karaa ayagana kaaga faa'iideysan karaan. mar walba laba positive ka fikir kaliya ka fikirin hal yani positive oo ah in aad dakhli aasamaysid ka fikirin. okay hadii aan koorso aad u waayo horta koorsadan muhiimadda ee dadkan u leedahay inaan ka fikiraa koodii hore inta aniga ka fikir lahaa lacag aniga aan sameeyay. أنا قف كان بريك مالي سؤاله إيمان كرا وحبا قبس كرا وحبا يعني كوات كان كرا محا أذيك للديارته ما أديار سنتهاي إن سؤاليس إباهيديس بقول أتقول من استرتو أتقول جوابته مسك كلي وحط دياره تهاي أنا كورسات كيبيسو كدب أنا أذيك لبحنا العكس أنا وقتها أنا كورسات واجدة وحفنتي وحنا فاهمين ليش كلمة ناس أذيك وطالع مصير سمية حسمين. يعني قفكان مر الله مركات قرب قوتي وأنت سؤالوا البكرة ولا أبطال هاي أنت لقي يلا أنت لقي يلا أنت لقي سمع مركي أدهي فين جوابتي قفكاري بري كواليتي تيسو ديسيا بولشة كله وحام بعينه. يعني سيدي أديك أقرب قوتي ورجع يو هالأبورنيبو يو إنا قرب قوتي أي دريسيا سو مركي بري حقوق أنا أرضي كله بعض
asagana arday kale ku sii samayn karaa. mar waliba ku fikir hay-adda ama bii'adda aad ku nooshahay. bii'adani waa Soomaaliya. Soomaaliya sidee baa aniga aan la rabaa Soomaaliga oo horumar gaartay oo wanaag gaartay. Okay, Soomaaliya sidee bay horumar ku gaari kartaa? Sidee bay wanaag ku gaari kartaa? Waxay ku gaari kartaa kooriska adiga aad bixisid, aqoonta adiga aad bixisid, xirfad adiga aad bixisid ee bulshadani aad ugu deeqdid ee ardayga koowaad aad qabatid aad bartid. asaga ayaa wadanka intaas qof kale wax sii gaarsiinaya. inaad kooris iibisid xirfadaada ku dhisantahay, aqoontaada ku dhisantahay waa waxyaabaha qofku uu ku samayn karo dakhli fiican oo kala duwan. waxaan filayaa inaad wax badan aad ka faa'iiday muuqaalkan. ku soo biir ama sidoo kale daawo muuqaaladii hore ee taxanaheeni ahaa aan ugu hadlaynay passive income. sidoo kale ku soo biir Telegram groupka aan linkiga hoos soo dhigayo, ama booqo Facebook channelkayga, sidoo kale booqo website-kayga anigoo linkiga qeybaha hoose ku soo dhigi doona insha Allah.